kusoo dhawaada barnaamijkeygii cunno karinta ah anigu waa Sheef Cabdicasiis Dhicis Caaw waxaan idin soo bandhigayaa habka wacan ee loo suubiyo ama loo fry gareeyo chickenka. Chickenka dhowr nooc ayaa loo suubin karaa. Waa la shiili karayaa, waa la bake gareyn karayaa, waa la roast gareyn karayaa, waa la braise gareyn karayaa, waa la boil gareyn karayaa, waa la poach gareyn karayaa, waa la barbecue style ayaa lagu suubin karayaa, waa la grill gareyn karayaa. Dhowr nooc ayaa loo suubin karayaa. Caaw waxaan suubinayaa waa fry gareynayaa chickenkii. maadaama chickenka aan fry gareynayo nooca caaw aan suubinayo waxa weeye Mareykanka ayaa laga isticmaalaa waxaa la yiraahdaa Southern style chicken, Southern fried chicken waxaa laga cunaa Mareykanka ayaa laga cunaa. haddaba su-aashu waxay tahay Southern fried chicken muxuu ka kooban yahay? Wuxuu ka kooban yahay bur, wuxuu ka kooban yahay chickenkii oo maaragtay lugtiisii, waxa uu ka kooban yahay cayenne pepper, waxa uu ka kooban yahay in yaro paprika, waxa uu ka kooban yahay black pepper, waxa uu ka kooban yahay cusbo ayuu ka kooban yahay. intaas ayaan isku darayaa hadduu Ilaahay yiraahdo. burkii ayaan ku qasayaa, kadibna chickenkii ayaan dusha ka marinayaa, kadibna saliid weel baan waxaan ku shubanayaa digsiga halka dhinacan iga yaal ayaan waxaan ku shubanayaa saliid baan ku shubayaa. marka waxaa habboon marka aad wax fry gareynaysid saliidda inaysan maaragtay very hot noqon oo 370 wixii ka koray hadday saliidda tahay. burkii marsanaa chickenka marsanaa si maaragtay dhakhsal ayuu u gubanayaa, markaasna chickenka dhexda ceyrin ayuu ka noqonayaa. haddii aad ka hoos marsiisidna 300 aad ka hoos marsiisidna chickenkii waxa weeye cabaar ayuu karayaa, laakiinse burkii ayaa wuxuu noqonayaa soogi oo maaragtay saliidii baa maaragtay waxay ka dhigaysaa maaragtay jileec bay ka dhigaysaa. marka badanaa waxaa habboon marka aad wax fry gareynaysid in aad isticmaashid thermometer oo halka yaala. thermometer ayaad isticmaalaysaa, deep frying thermometer gees ayaad kaga shubanaysaa, ayaad maaragtay digsiga ayaad gelinaysaa. waxa aad geenaysaa 350 chickenka 350 waa geen kartaa, 330 waa geen kartaa. laakiinse badanaaba ha ka hoos marina 300 waxa weeye waa iyo wixii ka hooseeya waxa uu noqonayaa maaragtay saliidii buu cabayaa, cabaarna wuu qaadanayaa inuu shilmo. Southern fried chicken waxa uu ka kooban yahay chickenkii oo maaragtay chicken drumskii oo aan ku dhigay brine ama aan marinade aan ku dhigay, kadibna aan ka miiray dhacaankii marinadekiisii. waa bad drying ayaan ku suubinayaa, waa qalajinayaa. waa ujeedaan waa chickenkii oo aan qalajiyey. waxa kale uu ka kooban yahay burka waxaa kaloo aan ku darayaa black pepper ayaan ku darayaa, waxa ay siinaysaa caraf gooni ah. waxaan kaloo ku darayaa paprika, cayenne pepper, wax yar oo maaragtay powdered maaragtay oo onion iyo powdered maaragtay oo maaragtay garlic intaas ayaan ku darayaa. waxaan kaloo ku darayaa cusbo oo maaragtay dhanaan yar siinaysa. burkii waa ujeedaan hadda waxa aan ku darayaa spiceskiisii iyo carfiyaashii. waxaan kaloo ku darayaa cusbo. waxa aan yeelayaa si fiican ayaan maaragtay u walaaqayaa burkii. ma aha inaad mar kasta aad soo galatid bur la soo suubiyey gonna cost you maaragtay qaali buu kugu noqonayaa. marka qaabkan u suubso way ka fududahay, maqaayadaha noqoto, guryaha noqoto, whatever wax walba waad ku suubsan kartaa. hadda waxa aan soo qaatay digsi, waxa aan ku shubayaa saliiddii aan wax ku fry gareynayay. badanaa waxaa habboon chickenka marka aad suubinaysid markaad burka aad marinaysid in aad yaro sugtid ilaa saliidda ay ka kululaato. marka ay saliidda kululaato oo aad istiraadid saliiddii meeshii laga rabo weeye, ama ilaa iyo waxyar baa u haray, markaas burkii waad marin kartaa chickenka. haddii kale hadda aan mariyo oon burkii chickenka aan mariyo oon burkiina aan chickenkii aan ku dhigo, chickenkii waxa uu leeyahay dhacaan mayso jir. burkii waxa uu noqonayaa dusha ayuu kaga dhagayaa, marka hodhowta si qaab xun maaragtay ayuu ku soo baxayaa. marka waxaa habboon last minute-ka aad rabtay chickenka inaad karisi aad shiishid, markaas inaad burka aad marisid. waxaa habboon saliidda burka marka aad ku shubaysid in aad maaragtay burka chickenka aad maaragtay ka daadisid.
laba xabo ayaan iskugu ridayaa chickenka markuu saliidda si fiican u sii dhex galo temperature-ka wuu degayaa xogaa wuu yara degi chickenkii oo aan deep frying oo aan maaragtay ku suubiyey waa dhameeyey haddaba su-aasha waxay tahay deep frying southern chicken muxuu ka kooban yahay waxa uu ka kooban yahay black pepper chili powder flour oo bur ah paprika cayenne pepper cusbo iyo maaragtay wax yaroo waxaan ku daray basal shiidan iyo toon shiidan sida oo ku soo baxana waa ujeedaan presentationkiisi aad iyo aad u qurxoon yahay waxa kale aan dusha ka saaray sixniga aan ku qurxiyey salsa aan suubsaday oo ka kooban basal toon kabsar caleen barbarooni cusbo khal olive oil iyo lima dhanaan southern style fried chicken waa dhameeyey southern fried chicken waxa uu ka koobnaa bur iyo carfiyaashiisii aan isku qasay kadibna chickenka aan mariyey kadibna saliiddii aan ku fry gareeyey aan ku shiilay saliidda waxaa geysanaysaa 300 ilaa 350 inta u dhaxaysa kadibna marka aan saliiddii oo maaragtay oo ku shiilmay oo dhacaankii uu ka baxay chickenkii 17 daqiiqo kadib ama se hadba dabka aad isticmaalaysid dabka isku qubad ma aha ilaa chickenka dhacaankiisa oo ka baxo waxaa ku garan kartaa either temperature ba waxaad isticmaali kartaa thermometer oo aad maaragtay meat thermometer midka loogu talagalay hadda waa hay meelahan oo iyana waa idin lahaa kaas ayaad dhexda ka gelinaysaa ama se haddii kale waxa ay yeelaysaa chickenkii ayaad xabad baad soo bixinaysaa waa test garaynaysaa waa kala dilaacinaysaa waxa aad fiirinaysaa lugta chickenka ee dhacaanka inuu ka dhammaaday waxaan kaloo aan ku qurxiyey salsa ayaan ku qurxiyey waa ujeedaan dishkan aad iyo aad buu u qurxoon yahay waxaa laga cunaa maraykanka waxaa la yidhahdaa southern style maaragtay fried chicken aad iyo aad buu u macaan yahay wuxuu u dhigmaa sida KFC doo kale weeye inta aan ku kulmi doono barnaamij la mid ah anigoo ah Sheef Cabdicasiis waxaan idin leeyahay amaana Allah caawa kaamirada waxaa noo haya Youngman Cabdullaahi oo wiigii hore noo qabtay caawna noo qabtay Cabdullaahi aad u mahadsan tahay thank you very much